xuud oo ku dhawaaqay inuu wada hadal la galayo Hirshabelle. Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn ugu soo horjeedo maamulka Hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay inuu wada hadal la galo maamulkaasi iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. Xuud oo ay hareero taagnaayeen taliyaha ciidamada dhulka Generaal Maxamed Tahliil Biix iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya xaq ka maqan reer Hiiraan ay u raadinayaan qaab wada hadal ah. dadoo ha isku siimina ogaada in la dagaali karo lana heshiin karo ayuu yiri Generaal Xuud. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray cid walba og waxa naga maqan annaga naga maqan in helo isaga ay dan ugu jirtaa annaga ay dan noogu jirtaa Soomaal ay ugu jirtaa insha Allah xaqaas waan keenayna. dankiisa taliyaha ciidamada dhulka oo ka hadlay shirkan jaray ayaa soo dhaway go'aanka uu qaatay Xuud si loo soo afjaro xiisada bilihii la soo dhaafay ka jirtay halkaasi. Biix oo sii hadlay ayaa saaca ka qaabay in uu beledweyne u tagay sidii xal loogu heli lahaa tabashada ay Hirshabelle ka qabaan qaar ka mid ah bulshada reer Hiiraan. arrintan ayaa ku soo aadayso iyadoo haatan Hirshabelle ay gudagalayso doorashada golaha shacabka oo kuraas ka mid ah lagu qabanayo magaalada beledweyne. si kastaba xiisadan ayaa sababtay in beledweyne laga hor istaago madaxweyne Cali Guudlaabe oo haatan wali booqan magaaladaas.